halkan waxaan ku qabanayaa shir jaraa'id anigoo ah Suldaan Xuseen Xasan Cali Waraabe oo ah Suldaanka Guud ee beelaha Somaliland ee cusub. waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin fool xun oo ka dhacday madaarka Hargeysa. arrintaas oo lagula kacay boqor Raabi Yuusuf Cabdillaahi oo ka mid ah madax dhaqameedka waaweyn ee beelaha Somaliland. arrintaa loo diiday boqorka inuu xashkii soo gudto uu madaarka galo aad iyo aad baan u cambaaraynayaa, waana ka soo horjeedaa. waxaanu aqbalaynana maaha oon yeelayno. waxa kaloo aan boqorka arrintaa doonaya inaan xaal ka siiyo arrintaa foosha xume lagula kacay. waxaan leeyahay boqorku may qabanin, Somalilandna may qabanin, in dhammaanteennayna may qabanin xaal ka qaado. waan kaa raaligelinaya arrintaa. waxa kaloo doonaya inaan u sheego mas-uuliyiinta arrintaa ku lug leh inay sameeyeen arrin fool xun oo dembi ah marka loo eego diinta Islaamka. dowladdana waxaan soo jeedinay in arrintaa ka daba tagto oo ciddii waxaa ka dambeysay tallaabo sharciga ka qaado. aad iyo aad baan u cambaaraynayaa, boqorkana xaal uga siinayaa anigoo arrinka intaa kusoo gabagabeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.